waxaynu falanqayn ku samayn doonaa labadii ciyaarood ee ugu dambeeyay ee kooxaha Arsenal iyo waliba Man City halka Arsenal ay dhigooda Tottenham ay kulankii toddobaadkan oo mid si gaarayso loogu hayay ahaa ay la ciyaareen haddaba tactical iyo falsafadii uu adeegsaday macallin Arteta ayaynu halkan ku qaadaa dhigi doonaa sida muuqaalkan kaaga muuqataba dhismuhu wuxuu ka bilaabmayaa gadaal dambe iyo goolhayaha waxaa jira laba difaac oo dhexe iyo goolhayaha halka Spurs ay soo dirtay laba weeraryahan oo kaliya si ay u cadaadiyaan marka Arsenal ay si dabiici ah ayay markan ay uga heshay faa'iidada 3-2 laakiin qodobka dhabta ma aha oo kaliya faa'iidada tirada markaynu eegnay waa in la arko haddii faa'iidada la ciyaari karo Spurs waxay samaysaa orod wareega iyagoo isku dayaya inay xidhaan goolhayaha iyagoo isticmaalaya hadhka ama daboolka si ay u xidhaan dariiqa kubadda ee saliiba looga dhiibayo marka shaqada saliiba waa inuu ka soo baxaa hadhka goolka waqtiga saxda iyadoo meel bannaan oo badan oo dhanka midigta uu waqtigaasi ka dalbanayo adeegga kubadda ama loo adeegsanayo lakab labaad oo cadaadisa dhaqdhaqaaqan ma aha mid adag in la sameeyo Arsenal si habsami leh ayay kubadda u gudbisaa marxaladda xigta ay waqtiga xagga weerarka ay ugu dhiibaan muuqaal kale Spurs waxay sii wadaan inay cadaadis saaraan meelo sare iyagoo si adag u calaamadaynaya iyo khadka dambe ee kooxda ayaa isna ku dhammaanaya 3 ciyaartooy oo isku mid ah oo 3 Trafford isaguna hoos ayuu degayaa si uu kubadda u helo sidoo kale dhaqdhaqaaqaas ayaa isla markiiba soo jiidanaya ciyaartooyga isaga ilaalinaya waana midda lagu kala tegay markaad sidan u eegto mararka qaar waxaad arki kartaa xidiga Bukayo Saka oo kubadda gadaal ka dalbanaya iyadoo goolhayo waqtigaas ay lugtiisa ku jirto orodka dheer ee xidigaha Arsenal ayuu goolhayuhu ka faa'iideysanayaa inuu adeegga si dhaqso ah aanay Tottenham waqtigaas dib ugu noqon karin markaana ay halkaa ku kala dhantaalmayso waana sababaha Arteta uu ku soo kordhiyay kooxdiisa Arsenal markaad eegto 3-by-3ga adeegyadan loo dalban karo waayo marka ay counter attack soo qaado ama weerar kugu soo qaado kooxda ka soo horjeeda Victor Gyökeres iyo sidoo kale Saka waxay yihiin kuwa cadaadiska joogtada cadowga ku abuuraya sidoo kale movement fara badan ku sameynaya rayana indhaha kala hadlaya markii loo baahdo sida kubaddan ka dhex muuqato oo kale waana midda Arsenal u keentay inay si sahlan uga gudubto kooxda Tottenham dhinaca kale aan dul istaagno kooxda Man City iyo waliba istiraatiijiyadda weerarka ku dhisan ee kooxda Man City Newcastle waa mid isku dhafan oo qaanuun leh laakiin marka ay isku dayaan inay isku urursadaan dhanka fog wuxuu hal lug oo barhka ay ka dambeeyaan xidigaha kooxda City waxaanay ku dhuftaan gudaha sanduuqa meelaynta City waa mid la kaba oo nadiifa qof ayaa weerar ku qaaday barta u dhow waana dhaqaaqa loo baahan yahay in difaaca lagu kala furo qof ayaa ku hanjabaya barta fog oo ah in dhaqaaqu sameeyo waqtiga oo kubadda midka dalbanaya uu iska dhigo laakiin waa midda kala dhantaashay jeebkaas yar ee ku wareegsan meesha rikoodhada dabcan ikhtiyaarka ugu fiican ayuu ahaa waa Marmuush halkan waa inuu ka gudbo difaaca hortiisa laakiin ma soo galayo oo gadaashiisa ayuu daba marayaa weerarkuna balse wuu guulaystay tani waa sababta ay muhiimka u tahay khadka dhexe ee sanduuqa kuma saabsana kaliya in la yeesho tirooyin bartamaha ama xidigahaagu ay ku tiro bataan khadka dhexe waxay ku saabsan tahay xakamaynta iyo go'aanada ballaca ee cadaawiga marka ciyaaryahanka khadka dhexe ee ballaadhan loo soo jiido gudaha waxay ka dhigan tahay iyaduna difaaca dhinaca fog wuxuu noqdaa horumariyahaaga xorta oo adeegyadaada mid oofiya qiyaastii 25 daqiiqo mar kale waxay leedahay fursad ay ugu beddesho dhinaca daciifka waa kooxda Man City Newcastle waxay ku jiraan 5-4 markaad halkan eegto ciyaartan Nick Walter waxa uu qabanayaa waajibaadkiisa khadka dhexe markaanu kubadda haysan oo wuxuu doortaa inuu boodo oo uu cadaadiyo City ayaa se garaacday oo go'aankaas ayaana ahaa mid waxyeello weyn geystay si lama filaan ah waxaa jira mid qoto dheer ama weerar la ciyaari karo oo u dhaxaysa
khadka dhexe iyo 5 difaaca oo waqtigaas aad kaga adeegan karto. waa markaas Haaland wuxuu samaynayaa waxay sameeyaan lambar 9 heerka sare markaad eegto dhaqaaqiisa iyo sidoo kale siduu uga dhex adeegtay. wuxuu qabsadaa booska indhala'aanta oo ka dhigan meesha uu difaacuhu arki karin isagoo u jeesanaya dhankiisa goolka, oo taas ayaa waxa ugu horeeya ee booska kala badhka ay isku dayayso inay ku siiso hal tallaabo oo kala saarida oo difaaca lagaga takhalusayo iyadoo difaacu u jeedo dhinaca goolkiisa. markaynu mar kale muuqaalkan eegno 4-2-2 ayay u taagan yihiin kooxda Man City, halka kooxda Newcastle ay u taagan tahay 4-5-1 iyadoo ay garoonka dhexe caadiga ay maamulayaan iyo wadooyinka dhexeba kooxda City iyo ciyaartoyda difaaca oo siinaya ballaca weerarka mid ku filan. kubaddu waxay marka hore aadaa dhanka bidix, ma jirto mari nadiifa, markaa City waxay dib ugu soo celisaa gudaha. hadda fiiri Newcastle ciyaartoydooda dhexe hoose waxay u dhaqaaqaan sidii hal unug oo dhanka kubadda sababtoo ah City waxay isticmaashaa garoonka dhexe si ay u abuuraan meel ay aad ugu buuxaan iyo weliba marin dhexe oo habboon. ciyaartoyga dhanka midiga Newcastle ma sii ahaan karo mid aad u ballaadhan, wuxuu u soo jiidaa gudaha xiddigan kooxda Man City kubadda. taasi waa sida waddada dibadda ee dhanka midig ee Newcastle ay waqtigaasi ku dhiman lahayd markuu tan adeegsanayo, iyadoo aan cidina runtii haysan ballacan. misana way ku khasbeen kooxda City in ay ballici ay rabeen ay furaan ama geeskii ay ugu talagaleen. faahfaahin kaloo muhiima, Newcastle ma helin cadaadis dhaba oo kubadda maaha mid adag. baragsharka oo ay xanibayaan lugta oo dhan waa shaashad boosa oo markaad sidaas ay u difaacdaan waxaad siisaa kubad qaadaha waqti uu madaxiisa kor ugu qaado. meesha dhinaca ee bannaan ee daciifka waa halkii irid ee kooxda Newcastle lagu khasbay inaan difaacooda baalluhu aanu ahayn mid isfidin kara iyo waqtigii sii daynta. halkan waxaa furaha yar ee kicinta waa mid ka mid ah labada weeraryahan ee City ee Marmuush. wuxuu sameeyaa orodka meesha kala baxa ama orodada dilaaga ee difaaca u quuskooya, oo orodkaas ayaa xidha ama xaniba difaaca midig ee Newcastle. maadaama masaaxo soo furay wuxuu gelayaa kanaalka gudaha oo ma awoodo inuu si degdeg uga soo baxo si uu daboolo meesha ballaadhan. marka difaacu uu helo wuxuu mar horeba u imanayaa meeshaas qiimaha badan leh oo ku taal geeska sanduuqa, maadaama aanu hore dib aanu ugu bixi karin oo xiddiga Marmuush aanu u wajihi karin. waa inuu bogoska uga sii dheereeya. taasi waa waxa loogu yeedho khiyaamada hoose, waana taay doonayaan City. weerarka dhanka dambe ee daciifka isagana fiiri Newcastle waa mid isku dhafan oo laakiin anshax leh, laakiin marka ay dhaafaan dhanka fog ayaa nustallaabo ka dambeeya oo City waxay garaacday dib u dhacaas keliya ee lagu helay kooxda Newcastle gudaha sanduuqa. meelaynta City waa mid la kala saaray oo nadiifa. hal tallaabo oo kala fogayna waa gowraca cadowgaaga iyadoo difaacu u jeedo xerada ganaaxa. difaacyo badan xilligan waxay ku dhacaan daawashada kubadda iyagoo ordaya. mudnaantoodu waxay noqotaa tiirka u dhow meesha kubadda lagu ciyaaro ee khatarta degdega. taasina waa wax caadiya, laakiin sidoo kale waxay la macno tahay in dhinaca daciifka uu si aamusnaana uga galo. dhaqdhaqaaqa City wuxuu u eeg yahay weerar laba lakaba oo buugacmeed oo ku yaalla gudaha sanduuqa. orodka tiirka dhow iyo booska dhexe ee lagu qabto difaacyada dhexe ka hor istaagidda inay u dhinac rogaan si ay u ilaaliyaan dhinaca daciifka. maankooda kumay soo dhicin. waa Newcastle difaac fog oo ka yimid dhinaca aan la arki karin oo gelaya daaqadda ugu nadiifsan ee madaxa lagu dhifto. iyadana waa mid musawirka marka hore aynu ka aragno, balse ugu dambayn goolkii waa loogu shubay difaacii bartii nadiifta ahayd baarayna kuma guulaysan. Cityna siday ahayd ayay istaraatiijiyadaas ay kulanka u asiibeen, waana midda la isdheer yahay haddii macallinkaagu uu yahay muhindis waxgala. waa xubintaynu ku eegaynay faallada iyo weliba falanqaynta taatikada
macallimiinta Arteta iyo weliba Pep Guardiola kulamadii u dambeeyay ee horyaalka ee toddobaadkan horaantiisa ay labada kooxoodba ciyaareen. anigoo Maxamed Tirikaaba idinla socodsiinayay intaynu midda xigta oo tactica aynu ku kulmi doono sida ayaamaana la saaxiibayaal.